الله الرحمن الرحيم مدن مدحوينه aad iyo aad bay sharaf ugu tahay maanta inaad oo dhagax dhigtid madaxtooyadii magaalada Gaalkacyo wasaaradda hawlaha guud wasaaradda beeraha iyo wasaaradda ganacsiga iyo bangiga dhexe Puntland gobolka Mudug iyo maxayto stationka ama maxayto saldhigga booliska bangiga ku yaala aad iyo aad baan maartay arrintaas waxay tahay arrin maartay wax qabad weyn ah aad baan maartay ugu faraxsanahay arrintaas inay maanta magaalada Gaalkacyo ka dhacdo siiba waxa weeyaan madaxtooyada halkaas oo ahayd meeshii intii Gaalkacyo aasaasantay maxayto waqtigii gumaysaha iyo waqtiyadii ka dambeeyayba muddo boqol iyo maxayto sano ka badan halkaas oo laga xukumayay maxayto gobolka Mudug aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta inaad dhagax dhigtid waxaan jeclahay inta haddaan idhin inaan siino inaan siiyo kelmadda wasiirka hawlaha guud Cabdirashiid والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا دي هذا فرحسن هاي Gaalkacyo intii burburka ahayd burbursaneed oo isku saaray oo dhammaan hay'adihii dawladda dhulka ay ku shaqeynayeen lalahaa in dib loo baneeyo oo shacabku si mutadawacnimo ah oo karaamo badan oo sharaf badan ay u soo wareejiyeen oo idaacadaha ay xoogoodu ka hadleen oo maanta guryo badan oo Gaalkacyo wax ku ool ku ah oo wasaaradihii iska lahaa lagu wareejiyey maanta madaxweynuhu inuu noo dhagax dhigo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay meesha hadda aan taagannahay waa substationkii bangiga ku hor oolaan jiray waa laga baneeyay dadkii dayactirkii iyo naqshadiina waa u diyaar dhabarka dambe waxaa laga xigo hadda madaxweynuhu dhagax dhigo waa bangigii dhexe dib baa loo dayactirayaa deerkiina waa lagu wareejiyey waxa u dhimana naashnaashkaana gudaha waa dhammaynaynaa mudana madaxweyne dhammaan wasaaradaha maanta furayaashooda la wareejiyey sida wasaaradda hawlaha guud wasaaradda ganacsiga wasaaradda beeraha ayaxi iyo madaxtooyadii dhammaan waxaan jecel lahay sida ugu dhaqsaha badan in hay'ad walba iyo wasaarad walba ay uga hawl gasho meesha shacabkii uu ku wareejiyey oo baneeyo dawladda lagu soo wareejiyey bilicdii iyo karaamadii iyo shaqadii ummadda u hayn jirtay mid walba sida ugu dhaqsaha badan inuu bilaabo aad iyo aad baan mudana madaxweyne ugu faraxsanahay waxaan kaloo aad u danaynaynay madaxweyne inaad noo dhagax dhigtid xeradii dayax oo aad looga shaqeeyey oo shaqo badani ka socoto oo dadkii dhammaan laga fujiyey guryaha dawladda aagagooda ganacsatada ahaa iyo kuwa bangiga laga saaray dhammaan aan doonayno inaan dejinno si qurux badan oo karaamo badan oo ganacsi u eg oo mustaqbal fog leh oo waddooyin aad arki doontay madaxweyne aan ka saaray insha Allah ayadana inaan sii marro waan jecel lahay mudana madaxweyne si madaxweynuhu kelmadiisa u yiraahdo ayaan ku soo dhaweynaya aad iyo aad baa u mahadsantihiin aad bay sharaf weyn ugu tahay inaan dhagax dhigno dhowr kameerood oo ay taabteen maayarka iyo wasiirku guddiguna aad ugu mahadsan yihiin shaqada runtii wanaagsan oo ay qabteen ilaa waqtiga aan nimid banaynta guryaha dawladda naqshadaynta magaalada iyo jidadka magaalada oo meel fiican runtii maraya aad baan waxaan ugu mahadnaqayaa dadkii sida wanaagsan ee wadaniyadda ku jirto u dhiibay uga baxay guryihii dawladda intii ogolaatay in magaalada si nabadgelyo oo wanaagsan loo naqshadeeyo jidadna looga bixiyo dadku aan ku arnay Gaalkacyo dad muwaadiniin runtii wanaagsan weeye una hoggaansan awaamirta dawladda intii wanaagga wax ku gudbisay oo ku dhiibtay waan u mahadnaqaynaa waana wax taariikhdu ay ka markici doonto intii jiriyeysa oo dib la timaadana gacan bir ayaanu isaga qabanaynaa runtu taa weeye waxaan rajaynayaa in wasaaradaha lagu wareejiyey guryahoodii iyo hay'adihii ama bangiga ha noqoto ama booliiska ha noqotee in wixii lagu hayay wax ka fiican ay ku qabtaan ayaan dadka warka cidnay maaha in meeshu iska bannaanaato oo bahalagalan iska noqoto macnaheedu maaha waxaan rabnaa marka si degdeg ah inay uga hawlgalaan u dhistaan hay'adahoodii wax wanaagsan oo qurux badanna oo dadka reer Gaalkacyo ay ku farxaana ay ka soo saaran ayaan deelaa yiraahdo waxaan rajaynaynaa marka inta noo hartayna inaan dhagax dhigno wasaaradaha intii hartay wasaarada waxaa jira aan guryaba ku lahayn deegaanna aan ku lahayn Gaalkacyo iyana waxaan rajaynaynaa guryaha dawladda oo la baneynayo qaybtooda
ay helaan ku wareejino loo dhagax dhigo yana ay dhistaan ayaan rajeynayna waxaana marka dowladdu mudug iyo gaalkacyaba si mug leh dowladda dhexe inay u timaado ugana shaqayso ayaan rajeynayna aad iyo aad baad u mahadsantihiin